بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد وحلقة نيشن يتبناد اتحانهني ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أستانت حلقة وإن شاء الله نقونيسا إفساد القلوب بالحسد والبغضاء. قلبك أولغو فسهاديو حسدك يعليتنك إن نيدا إيا قلبك أنا ليس كحسدو ليس علاديو سداسي أي علادك أبورنتو أرنكاسي وفساد في القلب. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. دادك ما وحي كحس ديانو يقور لأيهين فضلك إلهي ودادك سيسيي أو ديقي. نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وحان إذن كجدقيا وأن إذن كلدقيا إذن كي حسدك كفو هذا وهي معنه maxaa yeelay xasadku xasanaadka ayuu cunaa sida dabku uu maaragtay xaabada u cuno qoryaha sida uu u cuno maaragtay u baabi'iyo ayuu xasadku xasanaadka uu u cunaa. mucaawiya ibn abi sufyaanna waxa uu leeyahay kullu naasi aqdiru an urdiihi ilaa xaasida nicmatin. dadka oo dhan waan awoodaa inaan raalli geliyo laakiin qofka nicmada xaasidka ku ah kama raalli gelin karo maxaa yeelay fa innahu laa yurdiihi ilaa zawaalaha. inay nicmada meesha ka baxda moogiye wax uu ku raalli noqonayaba ma leh. marka xasadkii inuu qalbigiisa ka baxa moogiye nicmadan uu xasdayo oo zuusho unbaa ku raalli noqon karaa. marka nin aan raalli gelin kara ma aha ayuu leeyahay mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allaahu canhu waardaa. walaalayaal xasadku waa ictiraadun can qismat illaah. waa qofka oo isdiidsiinaya ama aan raalli ka ahayn qismada ilaahay. dadka ilaahay quudka uma simin, ilaahay quruxda uma simin, fahmada iyo fiirada uma simin, risqiga uma simin, calafka uma simin, nasiibka uma simin. alla subxaanahu wa tacaala bixikmatihi iyo wa cadlihi ayuu qof walba sadkiisa in ka dhigay. marka xasadku waa wixii ilaahay uu qaybiyey ee uu sidaa u qorsheeyey oo qofka uu ka hor imanayo. marka xasadku ma aha keliya wax uu qofku dareemayo ma aha, laakiin waa ictiraadun khafiyun calaa xikmati illaahi fii acطaa'ihi. ilaahay siismadiisa iyo deeqdiisa ayuu qofkani si qarsoon oo dadban oo cuqdad iyo xaasidnimo ah ayuu xikmadda ilaahi subxaana wa tacala uga hor imanaya. walaalkii buu nicmo ku arkayaa, kadibna nicmadii buu ka cadhoonayaa, wuu kohanayaa. waxaad moodaa lisaanulxaalkiisa inuu leeyahay maxaa isaga loo siiyey oo aniga la ii siin waayey. meeshaa weeye meeshuu markuu xasadka ka bilaabanayo. fallaahu huwa alqaasim. cidda wax qaybisa waa ilaahay. ilaahay waa marka waa caadil, ilaahay waa xakiim. qofka qismada ilaahay aysan raalli gelininna caasha saakhitan walow muli'at yadaah. qismada ilaahay qofka aan raalliga ku noqonin, een qanaacada helin, qorshaha ilaahay qadarkiisana aan raalli ku noqoninna waxaa weeye noloshiisa oo dhan waa cadhaysan yahay. ilaahumay gacmihiisu ay buuxaan. wadulqanaacati raadin fii maciishatihi wa akhulxirsi in athraa faqadbaan. waa kii ninkii shaacirkaa lahaa. qofka iimaanka san ee qismada ilaahay qaatay raalligana ku noqdeen xaasidka ahayn noloshiisu raalli ku yahay. sida uu ilaahay iyo meeshuu ilaahay dhigay ayuu raalli ku yahay. haddii owlaad la siiya raalli buu ku yahay, haddii owlaad loo diida raalli buu ku yahay, hadduu faqiir noqdo waa ku sabrayaa, hadduu taajir noqdona waa mahad celinayaa. qofka isaga ah hadba meesha ilaahay uu dhigay, hadduu madax yahay saasuu raalli ku yahay, hadduu minjo yahay saasuu raalli ku yahay. hadba meesha ilaahay uu dhigay ayuu raalli ku yahay. wadulqanaacati raadin fii maciishati wa akhul xirsi in athraa faqadbaanu. kan iimaan kale marka, kan qaadan, kan mar walba maaragtay wax doonaya aan maaragtay aan dhargaynin waxaa weeye in athraa faqadbaanu. xitaa hadduu tanaad noqdo oo ay gacmihiisu buuxaan qofka isaga waa qof cadhaysan un. muxuu ka cadhaysan yahay? waxaa weeye qismada ilaahay buusan raalli ku ahayn. radiinaa qismata aljabbaari fiina lanaa cilmun walilacdaa'i maalun. waa kay wadaadadu dhihi jireen. inkastoo qofka mu'minka ama muslimka ah waxaa weeye cilmi iyo maal buu isku darsan karo, laakiin wadaadadanadi hore waxay odhan jireen ilaahay qismadiisan raalli ku noqonnay inuu gaalana adduunka u furay, annagana cilmi iyo iimaan uuna siiyey. saasay odhan jireen. xasadku waa naarun ta'kulu saaxibahaa awalan. waa dab saaxiibkeed un cunaysa. qalbiga ayay cuslaynaysaa. inta aysan qofka la xasdayaba aysan dhibaatadu gaadhsiinin ayaa qofkan wax xasdaya ayaa qalbigiisa culays baa soo fuulaya. yuurisu albagdaa'a. colaad bay maaragtay ku dhaxal siinaysaa. qaraabadiibaa kala go'aysa. xasanaadkiibay cunaysaa. qalbi daahir ah badana oo daahir ahaayoo wanaagsanaa deetana ku fasahaaday nicmada walaalkii. hebeloo kalean maa noqdo, hebeloo kale inaan noqdaan doonayaa, hebel sidiisa maxaan u noqon waa intuu yidhi, kadibna sidaasi qalbigiisa ku fasahaaday. وصدق من قال الحاسد لا يهنأ بنعمة عنده ولا يطيق نعمة عند غيره. قفك حاسد كأه نعمة أو هيستنا بقادين
uma aha oo kuma iimaansama kuma qanacsana nicmada qofka kale ghayrkii uu haystana ma awoodo oo waa ka xanaaqaya waa xasdaya wala layal ma huwa cilaaj xasad xasadka maxaa cilaaj ah cilaajkiisa waa salaaxun cajiib waa maaratay hub cajiib ah uu leeyahayo waa adducaa lilmaxsuud bilbaraka qofka la xasday inaad u ducayso inaad qalbiga uga ducayso tir allahuma baarik lahu fi rizqihi ilaahay allahuma zid fadlaha ya rabb alcaalamiin marka hore waa laga yaabaa inay kugu adkaato laakiin markaad ku celceliso horta shaytaankii baa meesha ka baxaya qalbigaadii baa saafi noqonaya ilaahay fadligiisana waxa weye marka dambe qalbigaadii oo faaruq noqday oo caadi noqday oo xasadkii uu ka baxay baad arkaysaa ayuha alaxibatu fillah qof walbow naftaada ku mashquul wuxuu ilaahay ku siiyeyna ha ku deeqeen qalbigaadana taacada ilaahay ku camir cid kalena ha barbar dhigin oo aan maxaan hebel oo kale u noqon waaye ha dhihin waxaa walaalayaal markana laga doonayaa in aynu marka hore nafteenna aynu taskiyeyno oo aan u hogaaminno ilaahay subxaanahu wa tacaala awaamirtiisa iyo xikmaddiisa qof walbow maanta markay ku soo gaadho kelmaddan labada gacmood kor u qaad qof aad qalbiga wax ugu hayso ama xoogay laga yaaba xaasidnimo inay waxdan ka dhaxayso u ducee oo qalbiga uga ducee oo sujuudda ugu ducee oo ilaahay inuu akhriyo adduunba liibaana ugu ducee in sha allahu qalbigaada oo cibaadada dhadhansanaya oo run sheegaya ayaad arkaysaa qalbiga walaalayaal laa yajtamicu fiihi nuuru ridaa wa dukhaanu lxasad qalbiga kuma kulmaan raalli ahaanshada qofka inuu raalli noqdo nuurka ay leedahay iyo qiiqa xasadka kuma kulmaan labadooda mid unbaa u adkaanaya waxaa lagaa rabaa marka fakhtar liqalbika maa yaliiqu bihi qalbigaada waxa u cunnama ee aad la jeceshahay ayuunbaad dooranaysaa laakiin labadooda ma kulmaan ilaahay baan xasad magan ogan nahay ilaahay baan xiqdi magan ogan nahay ilaahay waxaan magan ogan nahay inaan dad kale oo annaga maaragtay nala mid aho ibni aadana waxa ay haystaan inaan u hanqal taagno ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan magan ogan nahay hada wallahu aclam wa sali allahuma cala sayidina muxamedin wacala aalihi wa saxbihi wa sallama tasliiman kasiira